عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام أصحابتي قالوا ميل وجوجتين سو هذا وأنا جو إفراح يوتيوب كداوني سيدنا إفراحين جن فضلا دايو عصبتها سبسكرايب تيسار هدي أجوجت لايك شير كومنت جنبلا الكفرو سيا نقطة الدعوة وهري أو ما تسنتين ما أنتو حربا إن إذا لو ذا قصة عجيبة قصة داس هويو يسد حدد ويل أي كان حسا هويا ذا سدح ويل أي الشيء هويا ذني سدح ويل أي الشيء هويا ذوي ويناتو حين قد قف وين ودقة hooyada markii weynaatay waxay go'aansatay in ay wiilasheeda la noolaato wiil kamid ah wiilasheedu waxay noqdeen niman waaweyn reero leh mid walba xaasi caruur leh waxay istiri wiilka kugu fiican oo kugu baarisan oo ilmaha aan la noolaan kartid iyo xaaskiisa bal tijaabo ka qaad kan kugu roon oo kugu baarisan hooyada waxay tagtay wiilka gurigiisii ugu weynaay ayay tagtay tijaabo ku jirta ayagana booqasho ay u maleeyaan hooyada waxay sameysay way seexatay way iska joogtay maalin ay waxay sameysay jalamad biyo ku jirtay soo qaaday waxay ku shubtay sariirta ka bacdi waxa soo gashay wiilka xaaskiisa oo soo gashay markaas waxay ku dhahday maamadii hooyo sariirtii way qoydayo waxa igu dhacay yaani maadaama qof weyn oo daa sida dadka waaweyn ka caadadu qaarkood oo waxa cishan waaye kaadidii soo sidii qofku weynaay kaadida ayaa iga fakatay sariirtii way qaylisay wiilka xaaskiisa aad ay u qaylisay maamadii canaanatay way ku qaylisay waxay dhahday maxaa u sameysay waa wiilkeedii uu maqlaaya waxba kama dhahaayo hadda hagaaji hadda dhaqo ee dhahday maamadii way aamusay gabadhii way qaylisay maamadii waxay ku dhahday dhaq hadeertaan dhaq waxaan haleysay guriga waa iga nijaasaysay way qaylis wiilkii uu maqlaaya hooyadii lagu qaylinayo waxba ma dhahaayo xaaskiisa ay raali ugu yahay maamadii way dhaqday wixii way hagaajisay shibe iska dhahday maalin kale sii joogto tartiib way iska baxday mac salaame dhahday ayadoo waxba dareensiin haddana waxay tagtay guriga wiilka kale ku xigay kii weynaayay joogtay kii ku xigay tagtay sidoo kale sameysay maamadii markay joogtay biyihii kirliga ku jiray soo qaaday sariirtii ku shubtay gabadhii xaaskiya soo gashay waxay ku dhahday saas ay qabsatay qof weyn ahay oo kaadida cishan waaye maadaama qof daa ahay saas ay ugu dhacdo hooyo way qaylisay ayadana sidoo kale tii waxay sameysay canaan saa'ido ninkeediiba macalaad u wacday dhahday kaalay tii u wacday markay u wacday waxay dhahday kaala arag hooyada waxay sameysay guriga iga haleysay guriga iga nijaasaysay hooyo maxaa sidaan u sameysay ku qayliyay asagana hooyadiisa xaaskiisa u heli isdiji macaanto wuxuu dhahaaday hooyadii marka ku qayliso hooyada waxay dhahday hagaajinayaan qof weyn oo daa wiilkeyga gabadheeyo kas igama saan ahayd okay way ku qaylisay adiga ninkina kama u sicilin wiilkuuna dhageysana inuu ugu qayliyo hooyadiisa hooyadii hagaajisay wixii dhan way sameysay okay sidoo kale way baxday markay baxday haddana wixii aaday wiilka kaleente oo yaraanka ahay gurigiisa asagana xaas lahay wiilka kale gurigiisa markay tagtay wiilka kale oo yaraanka ahay gurigiisa markay tagtay hooyadii waxay sameysay sidoo kale intay sameysay hadana jalmadii biyihii sariirtii ku shubtay xaaskii u soo gashay way u sheegtay waxay dhahdo hooyo qof daa ahay saana jirto maadaama kaadida casho sariirtii ku kaadi gabadhi inay hooyada u soo dhawaatay waxay dhahdo hooyo isdaji hooyo dib ma lahan ay ku dhahday waxaas wax dhibaato ah ma ahan waa caadi hooyo macaanto meeqa idinka korkiina ku kaadineynay maaqa idinku xaareynay meeqa maxaan ku dhahay idin dhibeynay meeqa adisaan idin yeeleynay hooyo macaanto waa waajibkeena inaan anaga kaadidiina dhaqno oo idin xanaaneena anaga sidii aan noo soo xanaaneyseen iyo si ka fiican hooyo waa mudantiin waalidkeena tahay waxaas hooyo dhib ma lahan anaa hadda hagaajina gabadhi gurigii hagaajisay sariirtii wixii dhan maamadii farxad ayay la ilmeysay markay ilmeysay hooyo meeqaana xambaarsaneedeen meeqa aanana siinaysan dhabtiina kuma tagayna dhabtiina ku kaadinayna ku xaareynay dhib ma lahan dhaad guriga hooshini way wadaa gabadha intay sas u hadleyso maamadii farxad markay la ilmeysay hayee dhahday iska fadhiisatay wiilkeedii ay madaxu ku shumiyay hooyo macaanto wuxuu ku dhahay gurigaaga waayo hooyo raaxeyso fadhiiso okay maamadii labadii hore sidii ku soo aragtay labadan sidii ku aragtay fajac maamadu way fikirtay go'aan maxay qaadatay in ay heshay baarigi iyo baariyadii ee la noolaan lahayd maadaama tijaabo ku jirtay in ay yihiin labadan qof xaaskan iyo wiilkeeda yaraanka ay maasha Allah sidii wanaagsan yihiin maamadii waxay sameysay waxay dhahday gabadhii waxay ku dhahday lacag ay heshay maamada hanti lahayd waxay ku dhahday hooyo soo bax waxa rabaa hadiyad ayaan dad u soo gadi rabaa gabar adiga kula dherer kula qaabkaaga leh marka waxa doonayaa inaa kugu soo jimeeyo maadaama gabadhaas adi isku saystihiin alaab hadiyada rabaa inaa meel u dhiibo
هاي هذا قبل ويرا عضي سوق ورا عضي وحيد هو يدوق عجنا يدوق ما دام قبل أديك وكلات هاي وحيالها قبلها إيقاتان ودوق وأديك أجعلان لهذا نفسي انت هذا سوق يجيس مع ماذا الذهب الدار يكوسو جيمس وحدنا سوقته سيده هدية وسو حرته وصباح له مع ماذا جرج إماتة maamad markay guriga imaatay waxay isku wacday labada wiil oo kaleente xaasaskoodii iyo gabadh iyo wiilka xaaska ee la nooleed ee isku wacday waxayna ugu sheekaysay qisadii in waxa dhan ay sameynaysay ee tijaabo aheed ee waxba kaadinin ee waxba ee ka fakanin ee xayita waxeedana cishan karto way yaaban indhii taageen waxayna meesha ugu duceysay uguna mahadcelisay gabadhii oo wiilkeeda kala qabaysay qisadii dhan markay u dhameysay ayaa waxay dhahday هديتي ود الذهب كي جميه وحي الدنيا ذهب تربضن يقدر إيو قبل كلامش كو قدون سيس كوي كلام ده تاجنا حتين وين وحي كورا هذا بس إجتين إذيك حاسسكين أنا قويل كان الله إذيك واحد الله لكن عاصي يقول نقطتين قبل حاسسكين إذين كان اسكومي ده أي نقطتين هذا ويل كان يحاسكيس أي في عن ما شاء الله بوسك والدني ما نكسب بحي باريال كان نلوشيد أنت كريم الله لانا يا gabadhaan ducadeedii qabtaa idikana ha isu ag istaagin meeshii ku ooyeen wixii ku dheen marka wallahi caas waalidiin ilaahay nagama dhigo subxaanallah qisadaas waa qiso cajiib hooyada saddexdii wiil sida ay u kala ciqaabtay iyo xaasaska ay qabeen sida ay u xumaayeen maasha Allah labadan kala ducada ka qaadatay ilaahay waxa ka baryeena inay noqono kuwi waalidkooda ka duca qaato ducada waalidka waa shay aad muhiim u ah ilaahayna ha naga dhigo kuwi kasbadaa ما شاء الله إله نجمر إيجو كوبحون أو والد كود سداس يسلم إذا أقوله إله كمان قالنا سبحان الله والدك هلا احترام والدك هلا دوره مرك إن شاء الله وكم هالسنتين داوشيد فيديو وإنه فيديو وحجو